أول حفظي حين بدأت آخر جزء في القرآن خير كلام فوق لساني سهل في لفظ ومعاني حين حفظت كلام الله. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، سورة فاتحة سورة ديدو وسورة مكية 7 آيادod ayay ka kooban tahay. waxay si fiican u tilmaami doontaa arrimooyin fara badan oo ay ka mid tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ma hadda inuu asaga leeyahay naxariista markaa leeyahay dadka oo dhan loogu talagalay inay ilaahay ka dalbaan hanuun. bismi illaahi araxmaani araxiim. alxamdu lilaahi, mahad ilaahay bay u sugnaatay. alxamdu mahad dhammaanteed lilaahi allah iskale oo rabbi bay u sugnaatay. rabbi alcaalamiina, caalamka oo dhan rabbigooda ah. caalamkan oo dhan allaha rabbiga u ah ee barbaariyaha koonka waxay u baahan yihiin u qabta, waxaysan weydiisanin horay ugu sameeyey. allahaasaa mahad iska leh. arraxmaani, naxariista guud ahaaneedoo muslimi kaafir ba u naxariista. waa nimco caam ahoo adduunka inta la joogo wada asiibta. arraxiimi, allaha naxariista qaaska ah. labadaba ilaahay waxa waaye naxariis badno, naxariis ayuu markaa leeyahay. arraxmaani, naxariista guud ahaaneed. arraxiimi, naxariista qaaska ah. maaliki, boqorkii. yawmi ddiini, maalinta abaalmarinta. yawmuddiin waa yawmu qiyaama, waa maalinta aakhiro. meliki dhe haddii kale boqorkii. yawmi ddiini, maalinta qiyaamaha. iyaaka adi un baan rabbiyow nacbudu ku caabudaynaa, wa iyaaka adi un baan haddana nastaciinu ku kaalmo weydiisanaynaa. rabbow adaan ku caabudaynaa, hayrkaa maya. ilaahuw adaan ku gargaar iyo kaalmo weydiisanaynaa oo aan kaa kaalmo dalbaynaa, hayrkaa maya. ihdinaa, nagu hanuuni, assiraata jidkii, almustaqiima ee toosnaa. jidka mustaqiimka ah rabbiyow nagu hanuuni. siraata aladiina, kuwii jidkoodii ancamta aad u nimcaysay calayhim korkooda, kuwii aad dushooda u nimcaysay jidkoodii ilaahayow nagu hanuuni. oo hayri almaqduubi, kuwii loo carooday aan ahayn, waa yuhuude, calayhim dushooda. waladaalliina, kuwii lumayna aan markaa ahayn, laakiin kuwa ka soo haray maqduub iyo daaliin oo dadka loo nimceeyey ah, kuwaa jidkooda nagu hanuuni yeeyihiin. wa min annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa waaalsaalixiina wa xasuna ulaa'ika rafiiqa. nebiyaal, sidiiqiin, saalixiin, shuhada iyo wixii markaa la mid ah. ihdinaa, nagu hanuuni, assiraata jidkii ama waddadii, almustaqiima ee toosnayd. siraata aladiina, kuwii jidkoodii ancamta aad u nimcaysay calayhim dushooda. hayri almaqduubi, kuwii loo caroodayna aan ahayn, ama kuwii loo carooday kayrkood ah, waa yuhuude, calayhim dushooda. waladaalliina, kuwii dhumayna aan markaa ahayn, ama kuwii dhumay kayrkood markaa ah. suuratu nnaas. bismi illaahi araxmaani araxiim. qul dheh acuudu, waxaan magan galay birabbi nnaasi, dadka rabbigoodii. meliki nnaasi, boqorkii dadka. ilaahi nnaasi, ilaahii dadka. waxaana ka magan galay min shari alwaswaasi, midka wax waswaasiya shartiisa. alkhannaasi, ee dhuumashada badan. alladii kaasoo yuwaswisu waswaasiya fii suduuri nnaasi, dadka laabahooda oo min aljinnati jinni ah, waannaasi iyo insiba. bismi illaahi araxmaani araxiimi. qul dheh acuudu, waxaan magan galay birabbi alfalaqi, allah wax kala dilaaciya, allaha wax kala jeexa.
waa faaliqu lisbaax habeen ayadoo jirto yo inta la dilaaciyaa maalin laga soo bixiyaa maalintiina saas oo kale. amase waa faaliqu alxabbi wannaar xabadda timirta ah lafteeda iyo beeraha markay soo baxayaan dilgaweyn ka soo bixiya allahaasaan magan galay. qul dheh acuudu waxaan magan galay birabbi nnaasi dadka rabbigoodii waxaan magan galay birabbi alfalaqi allah wax kala dilaaciya min shari maa shay shartii baan ka magan galay khalaqa uu abuuray wa min shari gaasiqin habeenka shartiisana ilaahay baan ka magan galay idaa waqaba marka uu soo galo waa marka habeenkii yimaado ama idaa waqaba marka uu mugdiyoobo oo meel kasta mugdigiisa uu markaa ku daboolo. wa min shari nafaafaati kuwa wax afuufa shartoodana ilaahay baan ka magan galay fi lcuqadi gunudaha dhexdooda waa saaxiriinta iyo dadka intay wax xirxiraan oo haddana afuufa sixirkii balaayada sameeya shartoodana ilaahay baan ka magan galay. wa min shari nafaafaati kuwa wax afuufa shartooda oo fi lcuqadi xirmooyinka iyo gunudaha dhexdooda afuufay sixirka ku sameeyaan kuwaana shartooda ilaahay baan ka magan galay. wa min shari xaasidin xaasidka shartiisana ilaahay baan ka magan galay idaa xasada markuu xasdaayo xaasidka markuu rabo inuu xasdana ilaahay baan shartiisa ka magan galay. inan lama ogaan kara xaasidkee xaasidnimaduna waa wax aad u xumo iska ilaaliya xaasidnimadu qofka xasanaadkiisay cuntaa buu yidhi nebiga sida dabka qoryaha ama cooska uu cuno oo kale. suuratu likhlaas waa qul huwa le ikhlaasna waa la yidhaahdaa. bismi illaahi araxmaani araxiim qul waxaad tidhaahdaa huwa asaga allaahu waa alle axadun waa mid keliya ah. waa markay dhaheen sif lanaa rabbigaaga noo sifeey maxamedow suu u yaalaa dhagax miya dhayman miya dahab miya naxaas miya qori miya qol dheh baa lagu soo dejiyey huwa allaahu ilaahay axadun waa axad waa alle keligii ah. faman yacmal qof allaala qofkii raba ilaa khayr la sameeyo oo agtiisa khayr uu ka helo ha caabudo ilaah keligii axadna yuusan ulu sharig yeelin. qol dheh huwa asagu allaahu waa alle waa ilaahay axadun oo axad ah keligii ah. allaahu ilaahay assamadu waa alle samad ahoo wax loo bandhigto. samad macnaha allah wax lala qasda waaye oo xaggiisa lala aado umuuraha dhibaatooyinka iyo mashaakilaadka. allaahu ilaahay assamadu waa alle samad ahoo sayid ah subxaana wa tacaala amase xawaa'ijta baahida dhibaatooyinka loo bandhigtoo lala aado. lam yalid wax ma dhalin walam yuulad mana la dhalin walam yakun lahu umana sugnaanin lahu asaga kufuwan axad kuf axad ah macnaha kuf u dhigma kufka waxaa yidhaahdaa waa wixii lamid ah oo qofka u dhigmaa wax u dhigmana ma jiro ilaahay. waalidna ma ahan oo wax ma dhalin wiilna ma aha oo lama dhalin kuf iyo wax la dhashoo walaal ahna ma jira macnaha. qul dheh huwa allaahu ilaahay huwa asagoo allaahu alla waaye axadun waa alle axad ahoo keligiis ah. allaahu ilaahay assamadu waa alle samad ahoo sayid ah amase alla samad ahoo xawaa'ijta iyo dhibaatooyinka iyo danaha lala qasdee lala aado oo loo bandhigto. lam yalid wax ma dhalin walam yuulad asagana lama dhalin walam yakun lahu mana u sugnaanin asagu kufuwan axadun kuf axad ah axad u dhigma iyo qof asagoo kala ahoo nid la-ahna ilaahay markaa ma jiro. suuratu lmasad bismi illahi araxmaan araxiim waa abiilahab markii nebiga intuu quraysh oo dhan isugu yeeray uu yidhi iska ilaaliya cadowga alle ciqaabka alle subxaana wa tacaala rabbigiinana caabuda. abiilahab waatuu yidhi ma waxaanaad noo jamcisay hoog iyo dhib ha kugu dhacee. tabbat baa lagu soo dejiyey waxa hoogay nebi moxamed ma aha laakiin tabbat waxaa hoogay yadaa abiilahabin abiilahab labadiisii gacmood wa tabba waaba hoogaye waaba khasaaray abiilahabe labadiisii gacmood khasaaraa ku dhacay. inta badan gacmaha camalka laga qabtaa ayaa marka laysaga nisbeeyaa maahane
gacmihiisa keliya hoogay ma ah, waa khasaaro la halaaga waa asagoo dhanba. wa tabba waaba khasaaraye maa aqnaa deeqi mayso canhu xaggiisa maaluhu maalkiisa iyo wamaa kasaba wixii uu kasbaday maalsii iyo ilmihii uu dhalay wax ay anfacayaan ama xaggiisa ay ka deeqayaan cadaabka alle iyo khasaaraha loo ballan qaaday ma jiro. sayaslaa naaran naar ayuu geli doonaa abi lahab daata lahabin olol u saaxiib ah. lahabka waa holaca aan qiiqa iyo qaaca lahayn, saa darteed baa lahabkaa uu geli doonaa. sayaslaa naaran naar ayuu gelayaa abi lahab daata lahabin olol u saaxiib ah, holac u saaxiib ah. wamra'atuhu xaaskiisana way gelaysaa ayadana, waa ummu jamiil, gabar dhib badan nebiga cadaabadiisa ka shaqaysay ahayd. waa famil ayagoo dhanba dhib badan bay ahaayeen, ayaduna way gelaysaa. arwaadaa la ohan jiray, abi sufyaan bay la dhalatay, naag aad ugu dadaasha dhibkay ahayd nebiga la gaarsiiyo. xamaalata alxatabi xaabada guri jirtay, xamaala ahay tii xambaarta alxatabi xatabka xambaarta. fii jiidihaa luqunteeda xabalun xarig xaal uu yahay bay gelaysaa naarta, min masadin oo liif ah, xarig adag oo masad ahoo kakan oo aan go-aynin yaa qoorta ugu xihan. xamaalata alxatab waxaa dhici karta in loola jeedo namiimad bay ahaydoo dadka isku dirdiri jirtay. inta hadalka soo qaad hiblaayo u geey, waa qoryo la xambaaray oo kale oo hadhow lagu gubto. ama waxay ahayd xamaalata alxatabi xatabka mid soo gurto qoryaha iyo dhagxaanta jajabtay iyo waxaasaa intay soo aruuriso waddada nebiga marayay ku daadin jirtay si dhib uu nebigu u gaaro gurigiisa ilaa masjidka. ama intay faaskeedii qaadato iyo qoryaha iyadu soo qaadan jirtay. waa gabar lacag leh, bakhiilnimaa lagu tilmaama. waxaa la rabay bacdamaa nin madaxa dhalay inay baxdo oo ay aado, intaa kabacdina ay u dirsato nin maskiina ama gabar masaakiin ah, lacagna ay siiso. ayadoo saas ah iyo haddana qoryihii wax ku karsanaysay iyo dhabarkeeda ku soo qaadaysaa. markaasaa wuxuu tilmaamayaa ilaahay xaaladda. llahi nasrigii alle, guushii alle haddii ay timaado, waalfatxu fatxigiina uu dhaco oo maka la furto, wara'ayta annaasa dadkiina aad aragto, yadkhuluuna ayagoo soo gelgelaya fii diini illaahi ilaahay diinkiisa afwaajan ayagoo jamaacaad iyo koox kooxa ah. fasabbix tasbiixso bixamdi rabbika rabbigaa mahadiisa ku tasbiixso adoo ku dhexdheehan. wastakfirhu allana dembi dhaaf weydiiso, waxaad dalbataa istikfaar iyo dembi dhaaf weydiisa la imow, waayo innahu ilaahay kaana wuxuu ahaaday tawaaban alla tawaab ah wuu ahaaday, waana yahay waana ahaan doonaa subxaana wa tacaala. innahu ilaahay kaana tawaaban waa alla tawaab ahoo towbad aqbal badan. suuratu lkaafiruun waa markay dhaheen waxooga aan isku soo dhowaano, sanana rabbigeenna ilaahyadeena nala caabud, sanana aan adigkula caabudno, maxaad ka qabtaa muxamedow? qul dheh rasuulkii ilaahayow, nimankan ku hor taagan ee kaa codsanaya hal sanana qashinkooda iyo dhagxaanta iyo baatilka ay wataan in lala caabudo, sanana ay rabaan oo ay weli damac ka qabaan inay koodii fiican yahay aan kula caabudnee, keena hadduu fiican yahay nasiib ka hel, kaaga hadduu fiican yahayna aan nasiib ka helno. jawaab qancisa sii, dib daman aysan kugu soo noqonayn oo waxaad dhahdaa yaa ayuha alkaafiruuna kaafiriintaanay, laa acbudu caabudi maayo maa tacbuduuna waxa aad caabudaysaan, walaa antum idinkuna ma tihiin caabiduuna kuwii caabudaya maa acbudu waxa aan caabudayo, walaa ana anigana ma ihi caabidun ku caabudaya ama caabudi doona mustaqbalka xataa maa cabadtum waxaad caabudaysaane rajaha iga qabina, walaa antum idinkuna ma tihiin caabiduuna kuwii caabudi doona
mustaqbalka maa acbudu waxaan caabudayo inta rajo aad ka qabtaanood leedihiin ilaahayaalkeena hadday khayr leeyihiinna inta aad saas ku jirtaan kuwa caabudayaa markaa ma tihiin lakum diinukum diinkiina ayaad leedihiin waliya anigana waxaan leeyahay diinii macnaha diinkayga ayagaa diin ka dhigtay diin ma aha shirkigiinaad leedihiin iyo asnaamtiina iyo waxaad ka heshaan maalinta qiyaamaha waliya diini anigana diinkayga ii sugnaaday qul dheh yaa ayuha alkaafiruuna kuwan kaafiriinta ahow laa acbudu caabudi maayo maa tacbuduuna waxa aad caabudaysaan walaa antum idinkuna ma tihiin caabiduuna kuwii caabudaya maa acbudu waxaan caabudayo walaa ana aniguna ma ihi caabidun gadaal ka dhig mid caabudi doona rajo danba ma jirto macnaha ha igu soo noqonina ma caabudi doonin mustaqbalka soo socda xataa maa cabadtum waxaad caabudaysaan walaa antum idinkuna caabiduuna kuwii caabudayaa ma tihiin maa acbudu waxaan caabudaya lakum diinukum ay lakum shirkukum shirkigiinaad leedihiin iyo gaalnimadiina waa ayagaa ka diin dhigtay kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun waliya diini anigana diinkayga ayaan markaa leeyahay suurat lkawsar canugii ugu dambeeyey markuu ka dhintay baa la yidhi ibraahim ahaa eeden maxamed waa abtarba wuu daba go-ay diinnantiisana meeshay ku dhammaatay asagiina wuu dhiman doonaa wax diin wadaayo wiil ahna uma soo harin waxa u soo haray waa gabdhana wax ay wadi karaan ma laha taa ku bishaaraysta waa abtar maxamede bismi illaahi raxmaan iraxiim baa lagu soo dejiyey innaa anagu acطaynaaka waxaan ku siinay alkawhara khayr fara badan baan ku siinay kawharku waa khayr fara badan waa nebinimo waa risaalo waa iimaan waa doorasho alleh waa cirkoo la saaray kawthar khayr fara badan ama kawtharka magaciisa laftigiisa ka dhigee darka qiyaamaha ay dadka muslimiintu kaaga cabi doonaan cabitaan aysan dib damba u oomaynin ayaan ku siinay wiilashaa kaa dhidhintay waxba ha u arkin beddelkeedaan ku siinay innaa acطaynaaka waxaanu ku siinay alkawhara khayr fara badane fasalli u duko lirabbika rabbigaa u duka nebi moxamedow wanxar gowracna qal waa xoolaha carafada inna shaani'aka midka ku dhibaya huwa alabtaru asagaa abtar ahe asagaa daba go-ay asagaa ciribtiisii go'day asagaa khasaaray asaa ba'ay adiga ma aha waad u jeedaa ilaa al'aankaa nebi maxamed sharafta uu leeyahay magaciisa lama maqlo ilaa waa wada soo boodaya adoo lagu sallinaayo ayagana magacooda maba la sheegaba kii la sheegana lacanad ayaa dusha looga tuuraa saa darteed rasuulkii ilaahayow kawthar baan ku siinay innaa anagu acطaynaaka waxaan ku siinay alkawhara khayr fara badane fasalli duko maalinta carafo ciidda maalinteeda tobanaadka ah salaada ciidul adxaaga tuko lirabbika rabbigaa dartii u duko wanxar gowraco lirabbika u gowrac rabbigaa dartiisa inna shaani'aka midka ku dhibaaya huwa alabtaru asagaa abtar ahe asagaa abtar ah wuu daba go-ay suurat lmaacuun ara'ayta aladii kii iiga waran rasuulkii allow yukadibu beeninaayey biddiini maalinta abaalmarinta fadalika kaa alladii waa midka yadcu lyatiima yatiimka riixa waa midka agoonta dhibaaya ee tuuraaya walaa yaxudu dadkana aan ku gubaabinaynin calaa طacaami almiskiin miskiinka quudintiisa fawaylun halaag lilmusalliina kuwa tukada ayuu u sugnaaday aladiina kuwaasoo hum ayagu can salaatihim salaadooda saahuuna ilowsan ama kaafiliinka ah aladiina kuwaasoo hum yuraa'uuna istustusaya dadka wayamnacuuna mancinaya oo reebaya almaacuuna maacuuntii alaabta layska adeegto suuratu quraysh liiilaafi qurayshin qurayshka caada yeelashadeedii iilaafihim ay ka caada dhigteen rixlata ashitaa'i xagaaga rarashadiisa iyo wasayfi tajiilaal falyacbuduu ha caabudaano rabba haada albeyti beytkan ee kana rabbiga iska leh alladii allahaasoo atacamahum ka quudiyey min juucin
baahi xaggeeda wa aamanahum kana aamin yeelay min khawfin cabsi xaggeeda. suuratu lfiil waa nimankii ku soo duulay maroodiyaasha kadibna alle ka celiyey. alam tara ma aragtay kayfa sidii facala uu ku sameeyey rabbuka rabbiga biasxaabi alfiili maroodiyaashii asxaabtooda. alam yajcal sow kama yeelin kaydahum dhagartoodii fii tadliil wax baaba'ay. wa arsala waa diray ilaahay calayhim korkooda tayran shimbiro abaabiila koox koox ah tarmiihim tuurahayay bixijaaratin dhagxaan min sijiilin adag oo dhoob la dubay ah. fajacalahum waxa uu ka yeelay ka casfin bal oo kale ma'kuulin la cunay oo la shafo la daaqay. suuratu humaza waylun halaag likulli humazatin mid kastoo xam badan buu u sugnaaday. lumazadin haddana lumasd ahoo ceebeeyo durid badan dadka dura. alladii kaasoo jamaca kulmiyey maalan xoolo wacaddadahu haddana tirtirinaya. yaxsabu ma wuxuu malaynayaa anna maalahu maalkiisa akhladahu inuu ku waaraayo. kallaa ka jooge layumbadanna waan tuuraynaa fi lxutamati xutamaan ku tuuraynaa. wamaa adaraaka maxaa ku ogeysiiyey malxutama xutama waxay tahay naarullaahi waa ilaahay naartii almuuqada ee la huriyey la shiday. allatii taasoo taطalicu gashe taalacataa cala alaf'idati quluubta. innahaa ayadu calayhim korkooda mu'sadatun waa tii lagu daboolayo iyo camadyo iyo tiirar waaweynna oo gudaheeda ah mumadadatin markaa la saaraye lagu tiirinaayo. waalcasri casrkii baan ku dhaartay ina alinsaana insaankaoo dhan lafii khusrin khasaaruu ku jiraa ila aladiina kuwii mooyaane aamanuu rumeeyey wa camiluu asaalixaati camal fiicanna samaystay watawaasoo isu dardaarmay bilxaqi xaqa watawaasoo isu dardaarmay biasabri sabarkana isu dardaarmay. suuratu takaafur alhaakum waxaa idin mashquuliyey attakaahuru badsi iskufaan xataa zurtum ilaa aad ka ziyaarateen almaqaabira qubuurihii. kallaa ka jooga xaaladda ha samaynine sawfa taclamuuna dib dambaad ka ogaan doontaan. uma intaa kadib kallaa haddana ka haroo jooga sawfa taclamuuna dib dambaad ka ogaan doontaan. xirib xumida faankuu leeyahay. kallaa waxaa xaq ah low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen cilma alyaqiin yaqiinta cilmigeeda ma faani lahayne latarawunna waad arkaysaan aljaxiima naarta jaxiimo. uma kabacdi latarawunnaha waxaad ku arkaysaan cayna alyaqiini il yaqiin ah. uma kadibna latus'alunna waa laydin su'aalayaa yowmaidin maalintaa can innaciimi naciimadii xaggeeda. suuratu alqaarica alqaaricatu tii wax kawinaysay. malqaaricatu midda wax kawisaa maxay tahay. wamaa adaraaka maxaa ku ogeysiiyey malqaaricatu midda wax kawisa waxay tahay. yowma maalin waaye yakuunu annaasu dadku uu ahaanayo kalfaraashi balanbaalis oo kale almabhuufi ee la firdhiyey. wa takuunu aljibaalu buuruhuna waxay noqonayaan kalcihni sidii suuf ama dhogor oo kale almanfuushi la ordha bixiyey la jilciyo la garaacay. fa amaa man ruuxii haqulad ay cuslaato mawaasiinuhu miisaanyaalkiisa xasanaadka ah fa huwa kaafii ciishatin nolol gudaheeduu ku jiraa raadiyatin oo raadiyo ah. wa amaa man ruuxiise khafad ay khafiifto mawaasiinuhu miisaankiisa xasanaadka ah fa ummuhu hoyadkiisa iyo ma'wadkiisa iyo meeshuu u dumayo haawiyatun waa naarta haawiya. wamaa adaraaka maxaa ku ogeysiiyey maa hiya waxa ay tahay taa. naarun waa naar xaamiyatun kulayl badan. waalcaadiyaati fardihii ordahayaan ku dhaartay dabxan ayagoo neef tuuraaya. faalmuuriyaati fardihii hurinayaan ku dhaartay qadaxan madagtiin dhimbilaha naar. faalmugiiraati fardihii weerarayay weerarka gelahayay subxan subxii fa atarna bihii kicinaayey naqcan boorka fa wasatna bihii dhexgelaayey jamcan jameeco gaalo ahaan ku dhaartaye ina alinsaana insaanku
lirabbihi rabbigii lakanuudun waa kii diidid badan oo amarkiisa diida wa innahu insaanku calaa daalika arrintaa la shahiidun waa kii shahiid ka ahee uu isku markhaati kici wa innahu insaanku lixubbi alkhayri xoolaha jacaylkooda la shadiidun waa kii ku adag afalaa yaclamu miyuusan ogayn idaa bucira wakhtiga lasoo bixinayo maa fi lqubuuri waxa qubuurta ku jira wa xusila la caddayn doono maa fi suduuri waxa laabaha ku jira inna rabbahum rabbigood bihim ayaga yowma-idin maalinta la khabiirun waa kii u xog warama waa kii u khabiir ahoo u khabri doona idaa zulzilat alardu arladu hadday gariirto zilzaalahaa gariirkeeda wa akhrajat alardu arladuna ay soo saarto adqaalaha culasyaalkeeda wa qaala alinsaanu insaanku wuxuu odhanayaa maalintaa maa lahaa maxaa dhacay yowma-idin maalinta tuxaddidu way waranaysaa arladii akhbaaraha akhbaarteeday ka hadlaysaa bianna rabbaka rabbigaa ayaana awxaa lahaa u waxyoonaya yowma-idin maalinta yasduru annaasu dadku way soo fulayaan oo waxay ka soo baxayaan qubuurihii ashtaatan ayagoo mutafariqiin ahoo kala tagtagsan liyuraw acmaalahum say u soo arkaan camaladoodii oo loo soo tusiyo faman yacmal qofkii camal qabtaa mithqaala darratin darro culayskeeda khayran oo khayr ahna yarahu waa arkayaa waman yacmal qofkii camal qabtaa mithqaala darratin wax yar culayskeeda sharan oo shar ahna yarahu isagana waa la tusaa oo markaa wuu arkayaa lam yakun aladiina kuwii ma ahaanin kafaruu kufriyey oo min ahli lkitaabi ahlu kitaabka ah waalmushrikiina iyo mushrikiintii makaba munfakiina kuwa ka zuulaya ka fuqaya waxay ku dhegan yihiin xataa ta'tiyahum ilaa ay u timaado albayinatu xujadii markaa caddayd rasuulun rasuulku u yimaado min allaahi ilaahay xaggiisa ka socda yatlu aqrinaya suxufan waraaqo mudahharatan la tahiray fiihaa suxuftaa dhexdooda kutubun axkaam baa ku qoran qayimatun oo markaa toosan wamaa tafaraqa aladiina kuwii kalena aysan tegtegin uutuulkitaaba kitaabka la siiyey ilaa min bacdi maa wakhti kadib maahane jaa'athum ay u timid albayinatu xujadii caddayd wamaa umiruu mana la amrin ilaa liyacbudu allaha inay ilaahay caabudaan maahane wax kale mukhlisiina ayagoo u saafi yeelaya lahu ilaahay addiina diinka xunafaa'a inay soo iishaanoo ay ka soo iishaan adyaan kasta oo baatil ah ayaa la amray una soo iishaan diinta islaamka ah wa yuqiimu asalaata salaadana ay hagaajiyaan wa yu'tu azakaata sakadana ay markaa gutaan wadaalika arrintaasna waa diinu alqayimati diinka qayimka ah ee markaa toosan diinka qayimkaee markaa toosan waayabuu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala wadaalika diinu alqayima ina aladiina kubi kafaruu kufriyoo gaaloobay oo min ahli lkitaabi ahlu kitaabka waa yahuud iyo nasaara iyo waalmushrikiina mushrikiintiiba fii naari jahannama naarta jahannama dhexdeeday ahaanayaan khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha gudaheeda ulaa'ika kuwaasi hum ayagu sharu albariya waa makhluuq kuwa u shar badan ina aladiina kubii aamanuu rumeeyey wa camiluu asaalixaati camalka fiicanna samaystay ulaa'ika kuwa hum ayaguna waa sharu albariyati makhluuqa kuwa ugu sharta badan jazaa'uhum abaalgudkoodu cinda rabbihim rabbigood agtiisa ayuu ahaadayoo jannaatun waa jannooyin ama jazaa'uhum abaalmarkooda oo cinda rabbihim rabbigood agtiisa ahaaday jannaatun waa jannooyin cadanin oo nagaadi ah tajri ay soconaysa min taxtihaa xaggeeda hoose alanhaaru wabiyaalo khaalidiina way ku waarayaan fiihaa jannooyinkaa dhexdooda abadan weligood
radia allaahu ilaahay wuu raadi noqday canhum xaggooda waraduu ayaguna way raadi noqdeen canhu ilaahay xaggiisay ka raadi noqdeen daalika jannada liman shaksi baa iska leh qof bay u sugnaatay khashiya cabsaday rabbahu rabbigii markaa ka cabsaday bismi illaahi araxmaani araxiim innaa anagu anzalnaahu waan soo dejinay qur'aankan fii laylati alqadari habeenka laylatulqadriga ah ayaan soo dejinaye wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa laylatu lqadari laylatulqadriga waxa uu yahay laylatulqadri habeenka laylatulqadriga ah khayrun waxa uu ka khayr badan yahay oo waa habeen ka khayr badan min alfi shahrin kun bilood waa yatanazzalu waxaa soo degtaa almalaa'ikatu malaa'igtii oo dhan iyo waruuxu malakuljibriilba fiiha habeenkaa gudihiisay biidni rabbihim rabbigood fasaxiisii idinkiisa ay kula soo degaan min kulli amrin amar kasta xaggiisa ayay la soo degaan salaamun nabadgeliyo hiya habeenkaasay ahaatay xataa matalica alfajr ilaa fajarka uu dhasho